maanta ayaa loo gelbiyey gurigiisa runta hobalkii caanka ah Cabdi Tahliil Warsame oo xalay ku geeriyooday Muqdisho saqdi dhexe xalay ayay nafta deysay sida uu sharxayo Maxamed Cabdi Tahliil oo kamid ah awlaadii uu ka tagay marxuumka xalay 8 saac bay nafta deysay wax saashin ma qabin xabbu aha 20 sano ugu jirnaa markii Ilaahay uu naxariiso shacabka Soomaaliyeed uu soo duceeyaan carruurta 13 barnaay waa 5 wiil iyo 8 gabdhood 12 xamar ay joogaan midna Hargeysa si weyn ayaa lagu tukaday salaada janaasada waxaana ka qayb galay dadweyne isugu jiray abwaano fanaaniin carruurtii uu ka tagay waxaase goobta ka maqnaa dawladda oo ahayd in ay xil iska saarto maadaama uu qarankiisa u soo halgamay Samsam Tahliil Warsame oo ah gabadhii uu dhalay marxuumka oo aad u murugsanayd ayaa sheegtay in muddo 8 sano uu xanuun la saarnaa aabihiis sariirta 12 sano uu ahaa bukaan socod taasoo ka dhigaysa in 20 sano uu xanuunsanaa marxuumka aabaheen Allah u naxariisto nin qaali uu ahaa nin wadani uu ahaa nin aan la koobi karin uu ahaa wuxuu dalka iyo dadkaba u qabtay ilaa haddana murtidiisa la maalayo ilaahay qabrigiisa ha u nuuriyo ilaahay qabrigiisa waa saacad dhiga sakaraadka soo ilaahay u mooti su'aasha aqrina la u mooti waan u duceyneynaa xanuunsanaa aabahay 12 sano uu socday 8 sano hadda sariir u saarnaa labatan sano isku go'antahay laba tobanka xanuun la nuuday ahayd oo lugu gacan u jiiday ahayd laakiin 8 sano oo sariir noo saarnaa abaani fanaaniin ayaa ka tacsiidiyay geerida marxuumka hase yeeshee anigu waxaan leeyahay geeridiisa waxaan leeyahay ilaahu adiga ku mahadsan waayo wuu silixsanaa dhibaato weyn buu qabay haddaan dib ugu noqdo xajiradiisa aniga Cabdi Tahliil Warsame hadda codkiisana waan jeclayn oo ummadda Soomaaliyeed baa jeclayd laakiin wixii carta ka sokeeyay oo carta uu ka bilaabay wiilkaas dhibaato qabay heerba maalinba ha soo joogto oo maalinba meel ha soo joogto laakiin wuxuu qabay dhibaato aad u weyn saakay markaan u ducaynaynayna waxaanu niyeysanay inuu helo khayr yahay niyadda Ilaahay baa iska wata qalbiga sababtoo ah Ilaahay caadil weeye laba dhibaato isugu ka dari maayo haddii albaab ka xirmo mid buu ku furaya ilaah baa ku mahadsan Cabdi Tahliil jannadii Allah ka waraabiyo dambigiisa Allah dhaafo ilaahay idankiis marti la jecel yahay Allah ka dhigo waxaan ku xasuustaa doorkiisii wanaagsanaa ee dadaalka badnaa kartida badnaa ma ahayn kaliya muxuu ahaay xirfadiisu taafanka iyo suugaanta wuxuu ahaa maamulka iyo maareeyntana door buu ku lahaa wuxuu ka soo shaqayn jiray muxuu ahaay gobolada Qardho oo kale Boosaaso kale waxaan xasuustaa wuxuu ahaa nin aqoon leh ayuu ahaa oo maamulka iyo maareynta ku dheer buu ahaa xilliyadii dambe kooxda danan muxuu ahaay ururka dhalinyarada kacanka Soomaaliyeed wuxuu ka ciyaari jiray door weyn oo maamulka kooxda danan muxuu ahaay Muqdisho isaga ayaa muxuu ahaay maamuli jiray wuxuu ahaa xirfadiisu fan oo kaliya ma yahayn wuxuu ahaa nin xagga maamulka iyo maareeyntana ku sareeya waxaan dul joogaa xabaalihii iskuul buluusiya ilaahay naxariistii hajinaha ka waraabiya Cabdi Tahliil Warsame wuxuu ahaa fanaan weyn oo caan ah gaar ahaan ku caan baxay heesaha iyo fanka iyo suugaanta ahaana markaas soo qabtay wax badan oo aad u badan maanta naalakan inaan ku aasayno anagu iyo faamigii aan halka joogno muddo 20 sano ku dhaw xanuunsanaa ee fanaanka weyn ee Cabdi Tahliil Warsame maanta ayaa loo galbiyay gurigiisa runta iyadoo dalka uu saameeyay cudurka dilaaga ee coronavirus ayaa si weyn looga soo qayb galay aaska waxaana aad uga qayb galay aaskiisa fanaaniin iyo ehelada dabcan dadka qaar waxay dawladihii dalka Soomaaliya ku dhiilayeen inuusan fanaankaas helin caafimaadka u baahnaa xilligu noolaa Haajir Abduqaadir RTN TV Muqdisho